بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى waxa uu soo dejiyay kutub waxaana uu soo dhibay rasuul waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee loo soo dhibay rasuusha waxa kamida akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ee aadamaha baraan nabiguna calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska uu soo saaray imaam Ahmed ibn Hanbal ee ahaa inama bi'ithu li utammima makarim al-akhlaq waxa la soo diray si aan u buuxiyo una dhameystiro akhlaaqda teeda wanaagsan sidoo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo sheegay inay xishoodku yahay mabaadi kamida mabaadidii loo soo dhibay nabiyada waa kii xadiiskii ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka suubani waa tiir kamida tiirarka ay ku taagan tahay diinteenu akhlaaqdu waa nuurka ummadda iyo nuxurka ay ku taagan tahay akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan diinteenu waxa ay ku baaqday waxa kamida xishoodka iyo dhaqamadii ka horeeyay caadooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee carabtu lahaayeen waxay ahaayeen qaar wanaagsan sida ayna hore u soo xusnayna dhaqankii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay waxa ay ahayd inuu dhameystirayo akhlaaqda wanaagsan xishoodku waa xakameeya xaydaabka ruuxa ka ilaaliya dhammaan xirooyinka halaaga qofku hadduu xishood waayana waxa uu waayayaa dhammaan karaamadiisa iyo noloshiisa waxyaabaha aan maanka galayn ee sharciguna aqbalayn waxa ku kacayo qof aan xishoodkii ka tegay xishoodku waa qiimaha qofka haddii uu xishoodku ka dhamaado waxa aad nacaysaa nolosha dhammaan iyo wanaageedaba qalbigaagana waxa uu wada ka dhiganaya shayaadiinul insi iyo shayaadiinul jinn sida aynu la wada socono maanta waxa ay dadku ku tugan yihiin darkii iyo dacdii wasaqda waxa aanay ku xunsan yihiin dhammaan xumaanihii ay nafta iyo diinta iyo caqliga iyo dadnimaduba ay nacaysay Allah subhanahu wa ta'ala adoomadiisa kamida kuma ciqaabna ugama dhigo isagu u geystay mid ka xun inuu ka saaro xishoodka waxa ay fahansanayeen ogaayeen muhiimadda uu xishoodku u leeyahay nolosha gabyayadii carbeed mid kamida kuwii ugu xikmadda badnaa ayaa waxa uu leeyahay yaciishu al-mar'u mastahya bi khayrin ويبقى العود ما بقي اللحاء فما والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء الدنيا iyo dadalaadkeedu toona khayr ma laha qofku haddaan uu xishoodkii ka tago haddaba waxayna loo gudbin waqtigan uu fasahaadkii iyo foolxumadii faraha ka baxeen in ay dadku is ilaaliyaan xishoodkiina ku noqdaan kii wanaagsanaa ee adduunyada soo maray waxa ay inooga hoga tusaalenayeen muhiimadda iyo maqaamka uu nolosha ka leeyahay xishoodka iyo aayaha qofka mid kamida culimadii muslimiinta kuwa ugu waaweyn ayaa waxa uu leeyahay ma aqaba Allahu qalban ashadda bi an yaslaba minhu al-haya Allah subhanahu wa ta'ala adoomadiisa kamida kuma ciqaabna ugama dhigo isagu u geystay mid ka xun inuu ka saaro xishoodka waxa ay fahansanayeen ogaayeen muhiimadda uu xishoodku u leeyahay nolosha gabyaa kamida gabyaagii carabta ayaa waxa uu leeyahay innamal umamu bil akhlaaqi ma baqiyat in dhahabat akhlaaquhum dhahabu umad kastaaba waxa ay ku taagan tahay oo tiir u ah xishoodka haddii xishoodkii uu nolosha ka tagana ummadaas waxa waajiba inay dhacdo waxyaabaha ay ummadaha lagu halaago waxa kamida laguna baabiyo foolxumada iyo fasahaadku marka ay gaaraan heer aanay ka soo noqon karin fikirna ay fuulaan waxay ummaduhu dumaan akhlaaqda markay lunshaan